السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مر لباد iyo mar saddexaad iyo mar afaraad ba waa idin salaamay ma sha Allah. Asxaabay warkiina keena maxaa haysiin yaa maxaa lahayaa maanta meeshaan la joogaa ilmaha meesha lagu ciyaarsiiyo la joogaa iskuulka ciyaalka maxaa haysiin warkiina keena xaaladiina iyo warama mala caafimaad qabaa ehel iyo qaraabo dhammaan see la yahay maxaa lahayaa yaa maanta sheeko waxaan hayaa idin weydiinayaa walaalayaalow dumarku maxay isku necab yihiin dumarkanagu maxay isku necab yihiin dumarow maxaad isku necabtiin walaalayaalow adinkaa maxay hayto wax walba idin gaaran adinkaa dhib idin haystaa adinkaa maxay hayto markasta cabaadaya meelaha adinkaa jab idin haystaa marka dumarku maxay isku necab yihiin maxaase ka dhigay dumarka siiba dumarka jooga wadamadan aan u soo haajirnay jooga oo qurbaha maxaa ka dhigay wada single maxaa ka dhigay maxaa single ka wada dhigay oo maxay xagaad wariyaa eedo maqabtid maxaa single ka wada dhigay walaalayaalow mid laba wadata mid saddex wadata mid afar wadata maxaa single ka wada dhigay maxaa dhacay siiba dumarka qurbaha jooga kuwa Soomaaliya haday yihiin kollay way yar yihiin laakiin gabdhaha qurbaha jooga maxaa single ka wada dhigay maxaa ku dhacay ma la ii sheegi karaa mase maxay hayto markii qurbaha la yimid wax la ismooday maxaa dhacay dumarka ayagaan is arki karin ayaga is caynaya ayaga wax walba isku sameynaya ayaga is nacab ayaga is ximinaya marka walaalayaal dumarkii qurbaha maxaa ku dhacay kale kuwa Soomaaliya haday yihiin ma badna laakiin anigu qurbahan waxaa jira dumar badan oo single ah boqolkiina waa 60 dumarka Soomaaliyeed boqolkiiba waa 60 ayaga yaa miidiyo iyo meel walbana isku caynaya meel walbana isku xaxaganaya meel walbana isku cunaayo marka maxaa qaldan ii sheegi kartiin maxaa idin ku dhacay nasiib xumada idin ku dhacday maxay tahay ma la ii sheegi karaa goormaas ka baxaynaa haddaan dumarka Soomaaliyeed nahay inta gacmaha isqabsano waxaan haddaan ka tanaasulna ka war oo hooyo walbana maxay hayto ay ilmaheeda iyo odaygeeda isku haysato dhib iyo dhaaf waxay kala kulantaba hadday isku haysato ka waran ay samarto because cunuga markaad aabihiis banaanka u bixisid cunugi waa ciishoonaya cunug maxay hayto markasta tiisa aan haysan cunug iska dhibaataysan cunug si cunug daruufaysan waaye because waa cunug qurba joogo haddana waxaa wadankiisa hooyo aan joogin oo haddana waxaa hooyadii aabihiiba maxay hayto ay isla wada joogin isla haysan raggan midaan leeyahay ayagana ragow adinkana waxaa waaye u dulqaata dumarkiina u dulqaata oo dhibka dhaafa iyo waxaad wadiin iyo maxay hayto kollay inkastay dumarku leeyihiin waa ragguna ay leeyihiin waa dumarka laakiin anigu waxaan dhihi lahaa gacmaha la isqabsado ma garad gacmaha la isqabsado halla maxay hayto kaashado yacni waxaan lagu jiro iyo dhibkan lagu jiro halla iska dhaafaan dhihi lahaa gacmaha halla isqabsado waana talo loo soo jeedinayo hooyooyinka ku socota waaye hooyo 5 haysato maxaa arkaysaa single ah mise garoob la dhahay hooyo waxaa arkaysaa ka badan haysato garoob marka walaalayaal gacmaha isqabsada ilmihiina iyo ninkiina iyo wixiina isku haysta isku samra sabarku waa wax muhiim in la sabro oo ilmahaaga loo samro oo reerkaaga u samartid gabaray oo ninkaaga u samartid hadduu qaldan yahay aad u samartid marka waxay tahay wax ku dhaama male ma garad wax ku dhaama malahan wax ku dhaama male u sabaran ku dheelhaan reerkaaga gabdhow adinkana isku dhaganaashaha iyo isficilaysan walaalayaal oo joojiya midiyo walba aad gashid gabar caynayso
miidiya walba aad gashid gabaraa la xumaynaya yaa xumaynaya wiil soomaaliyeed miidiya walba aad aragtid iyo meel walba aad aragtid gabdhaa iscaayinaya war dumarow maxaa idinku dhacay aaway sharaftaa lahaan jirteen maasha allah sharaftaan lahaan jirna aaway cisiga aan lahaan jirnay aaway karaamadii ilaahayna siiye aaway walaalayaalow maxaad karaamada isaga qaadaysiin ilaahay karaamuna siiyey dumaraan nahay haddana hooyaan maxay hayto noqonnay amba noqonaynaa amba nahay marka walaalayaalow waxaa waaye carab iyo ilkaa isqoomo carab iyo ilkaa dad isugu xigo weyna isqoomaan marka walaalayaalow waxyaalaha qaarkood waa ceeb aan isku samarno aan isku dulqaadanno aan reerkeena iyo ilmaheena u dulqaadanno ma garateen reerkeena ilmaheena aan u dulqaadanno aan isku dulqaadanno waxa socda yacni aan ka hortagno waan ka hortagi karnaa dumaraan nahay dumarkaa wax walba bedela dumarkaa wax walba dhisa dumarkaa wax walba waxeeya ma garateen marka hooyadu waa geed weyn oo la harsado hooyadu waa geed weyn oo la harsado geedka la harsadana yacni waa in la waraabiyaa uu qalalin marka dumarow sida aan isku dhahno walaalayaalow waxyaalaha qaarkoodna halaga tanaasulo ma fiicna hooyaan nahay dumaraan nahay ilaaha maxay hayto dumar naga dhigay ilaaha haddana hooyo naga dhigay awlaadeenna aan korsanno maskax caafimaad qabta maskax maxay hayto buuxda cunugan hooyo korin ilmaha kale wallahi waa ka maskax gaabiya because aniga dad badanoo waxaan arkay amba hooyadood ayna korsan oo rajo noqday amba maxay hayto hooyadii si kale looga qaatay oo amba eedda korisay amba aabba koriyey wallahi cunuga hooyo korisaa ka caqli badan kana fuurbaysan kana maxay hayto karti iyo edaab iyo maxay akhlaaq wacan because cunuga haddayna hooyo korin akhlaaq ma lahan hooyadu waa tiirka akhlaaqda cunuga hooyadu waa tiirka akhlaaqda cunuga marka cunugan hooyo korin akhlaaq ma lahan marka dumara waxaa waaye walaalayaalow aan ilmaheena korsanno walaalayaalow ilmaheena aan maxay u dhaamanno walaalayaalow waxaa waaye aan samarno oo ilmaheena aan u sabarno oon u dulqaadanno oo ninkeena waxaana isku haysanno ma garateen waana ceeb hooyo waxaa waaye intaasoo ciyaala haysato oo ninkeediioo raba bannaanka u cayrisay oo maxay ahayd furtiri waa ceeb marka walaalayaalow aan u dulqaadanno hooyaan nahay adduunkan waa wax yar la joogi maayo laakiin cunugaagu cunug ha noqdo maskaxdiisu buuxdo because cunuga hadday hooyo aaba soo korin maskaxdiisu way kala dhantaalanta laakiin cunuga hooyo aaba ay soo koriyaan oo jacayl lagu koriyo wallahi ilmaha kale maasha allah waa ka fiican yihiin laakiin cunugii waxaa waaye ay hooyo korin amba aaba koriyo amba qolo kale koriso waxaa waaye ilmaha kale waa ka qaab daran yahay waana ka dhantaalan yahay waana ka dabeecad qallafsan yahay waana xagga akhlaaqda xataa ku akhlaaq maahan cunuga hooyo korisaa 95% weliba akhlaaq badan marka walaalayaal waxaa waaye maanta taladaasaan idiin hayaa waanadaasaan idiin hayaa wixii adinka talaad igu soo darsan kartiin oo commentina waad igu soo darsan kartiin waanad igu caawin kartiin like iyo shareka igu caawiya waa maskiintii Layla ahayde igu caawiya Layla channel waa walaashiin marka waxyaalo badanna waa soo wadaa waana ka soo hadlayaa waxyaalo badan oo daruufaha oo gabdho qabsaday aan u taagnaa oo saaxiibaday ah qaar aan maxay ahayd wax isku nahay qaar aan qaraabo koranahay qaar aan maxay ahayd ehel nahay ka soo hadli doona insha Allah iyo waxyaalo kale oo badan haddii waqtigu ii saamaxo mashquulaan shaqo xasab mashquulay marka hadda waa garanaysaa qof hooyaa gurigeena ku mashquulsan shaqana ku mashquulsan oo family marka walaalayaal waxaa waaye aan xagsana nimankanaga iyo guriganaga iyo reerkanaga maanta anigu taladaasaan wadaa gabadhii abaayaha igu diidan hadda waa iyada marka waa ceeb nimankiina waa garoobo gabdhihiina waa garoobo yaa garoobka wada dhigay yaa garoob